love Arsenal. Oh yes. We are Arsenal. No mercy. xidiga kooxda Arsenal ee wacdaraha dhigaya xilli ciyaareedkan Mathieu Gunduzi ayaa kamid ah tiro 20 laacib oo soo sharaxay ama loo soo sharaxay inay qayb ka ahaadaan xidiga Golden Boy ama xidiga dahabiga ah ee sanadkan xidiga Gunners ee haysta kalsoonida macalinkiisa Mathieu Gunduzi ayaa markii ugu horeysay noloshiisa qayb ka noqon doona listiga ciyaartoyda u sharaxan Golden Boy-ga ama liiska xidiga dahabiga ee sanadkan 2019-2020 wiilka Unai Emery ayaa ku soo bilowday kulan kasta oo Premier League xilli ciyaareedkan waxaana uu ku soo baxay mid heer caalami ah isaguna dhammaan xilli ciyaareedkan amaan kala kulmay xidigihiisa ama xidigaha waaweyn ee kubadda cagta Rio Ferdinand daafaca kooxda Manchester United ayaa mar hore xilli ciyaareedkan ku tilmaamay Mathieu Gunduzi geesi yar oo soo kacay Arsenal kubad sameeyay hore Gunners Fabregas waa macallin Mubas ayaa isna ku tilmaamay xidigana mid ay ku qasban yihiin taageerayaasha Arsenal inay jeclaadaan waxana uu sheegay inuu hor yaalo mustaqbal weyn hadii ku sii nagaado Arsenal Arsene Wenger macalinka hore Arsenal ayaa kamid ahaa xaliyadii kubadda cagta amaana Mathieu Gunduzi isagoona ku tilmaamay inuu yahay xidig u soo kacaya Arsenal laakiin uu u baahan yahay in uu tubta guusha uu ku sii hayo wiilka Unai Emery lagu naanaysa ayaana kamid ah xidigaha farakutiriska ee xilli ciyaareedkan oo dhan wacdaraha ka dhigaya Arsenal waxana lagu xasuustaa wacdarihii cajiibka ahaa ama qab ciyaareedkii la yaabka lahaa ee uu soo bandhigay kulagii North London Derby ama kulankii waqooyiga London ay Arsenal iyo Tottenham ay ku kulmeen ka dhacay Emirates Gunduzi ayaa lagu xasuustaa goolkii barbaraha ee uu siiyay xidiga kooxda Arsenal ee Pierre-Emerick Aubameyang isagoo kulankaasi loo doortay xidig ugu fiicnaa garoonka waxa jira kulamo kale oo cajiib ah oo xidigan loo doortay xidig ugu fiicnaa garoonka haddaba haddii aan idin eegno xidigaha u sharaxan Golden Boy ama halaba ama xidigaha dahabiga ama xidiga dahabiga ah waxa ugu horeeya daafaca kooxda Juventus Matheus de Ligt oo 20 sano jir ah waxa kamid ah Alphonso Davies oo 18 jir oo Bayern Munich ka tirsan Giorgio Donnarumma oo 20 jir oo AC Milan goolka u ilaaliya Ansu Fati waa 16 sano jir Barcelona weerarka uga ciyaara Phil Foden waa 19 jir Man City u safta Mathieu Gunduzi waa xidiga u soo kacay Arsenal waa 20 jir Arsenal ayuu dhexda u kala wada Erling Braut Haaland waa xidiga Salzburg u soo kacay ama kooxda reer Austria waa magaalada aan ku noolahay waa 19 jir xidigan Haaland saddexleedii Champions League ayaa lagu xasuustaa Karl Havertz waa 20 jir Bayer Leverkusen ayuu ka tirsan yahay Joy Felix 19 jir Atletico Madrid ayuu weerarka uga ciyaaraa Dejan Jovalic waa xidiga lagu magacaabo 20 jir weeye waxa uu weerarka uga ciyaaraa kooxda reer Germany ee lagu magacaabo Eintracht Frankfurt Moise Kean 19 jir weerarka Everton ayuu uga ciyaaraa Lee Kang-in waa 18 jir Valencia ayuu u safdaa waxa kale kamid ah xidigaha loo sharaxay Golden Boy-ga xilli ciyaareedkan ama sanadkan Andre Lunin waa 20 sano jir Real Madrid ayuu ka tirsan yahay Daniel Malen 20 jir PSV Arsenal ayuu hore wiilkan uga soo ciyaaray weerarka hadda PSV kooxda reer Holland ayuu uga ciyaaraa wiilka Chelsea waa Mason Mount oo 20 sano jir ah ayaa kamid ah Rodrigo 18 jir Real Madrid ayaa kamid ah Jadon Sancho waa xidiga weerarka Borussia Dortmund ayaa oo 19 jir ah ayaa isaguna kamid ah Ferran Torres waa 19 sano jir Valencia Yusufta Vinicius Junior 19 jir Real Madrid xidiga ugu dambeeyay listigan soo buuxiyay waa Nicolo Zaniolo oo 20 sano jir ah oo weerarka Roma uga ciyaara We got Dennis Bergkamp. 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 Dennis Bergkamp. Hughes Adams. Yeah, finding Winter. Marla. Right. Bergkamp. Haddaba xidigana Mathieu Gunduzi guul oo dhan ayaa ugu rajeenayna waxaana u rajeenaynaa inuu ku guuleysto wiilka dahabiga
وأدمن وريا محمود فانتاستيك يا دمان أدمنada halkan oo idinkaga tagaya salaamu min Allah alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.